7 cisho gudahooda waxaa iga go'ay 3 kg. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملكستي أنتوا جوجتي وسلامتين ودونا أنا أونلي آمنة عبد القادر. ما أنتوا حياتها هاي I think معلن ماي واحد إيش شاكتها مايا ما أنتي هرا 6 days 6 days I think 6 days or 7 days yes 7 to 6 waxay tahay 7 to 6 maalintii aan day 1 ka idin soo galiyay maanta waxaan noqonaysaa miisaankii iga dhacay waa aragteen markii hore waxaan ahaa 75 hadda waxaan ahay 72 and something meelahaas aan ahay kolay dadaal badan baan ku bixiyay juhdi badan baan ku bixiyay maanta kolay wixii aan sameeyay oo dhan waad aragteen muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan maadaama aan weyd loo sameeyo in aan badiyo orodka markaan orodka dhameeyo macnaha aan gaadho miisaankii aan rabay ayaan waxa sameyn doonaa biraha iyo waxa macallimiintu ii sheegeen isma lahayn bas 72.5 bad gaari doontaa hada one day kuma fikirin
laakiin ma sha Allah 6 days baan waxaan ku jiray 2 kilo aan above baan ku jiray alxamdulillah idinkana waxay idin rajaynayaa dadkii maalintii ila bilaabay haddii ay gym noqoto iyo haddii aad gym guriga dhexdeeda aad ku dhex samaynaysaan in aad at least 1 kg idinka dhaco waanan idinkula talan lahaa runtii inta anigu gymta bilaabay waxaan iska dareemay caafimaad bariga hore hurdadu waa igu yaray dadka Asia jooga special dadka Malaysia jooga hurdadu ma garan karo dharaartii baa la hurdaa habeenkii bay dadku shaqeeyaan marka waynu macnaheedu halkaynu habeenkii ka seexanaan dharaartii ka shaqeyn lahayn anagu waan bedelnay wixii habeenkii baanu shaqeynaa dharaartii baan hurinaa alxamdulillah hadda markii aan aroortii oo kale exercise sameeyo gelinkii dambe oo kale waxaan sameeyaa shaqadayda iyo hawlahayga habeenkii anigoo daalan waaba seexdaaba oo haddii aad fiidiyoyada aragtaan galbihii oo kale soo sii daaya ay Afrikana aroor u tahay sababtan u sii daayana waxayaan maadaama jalwadkaygiina oo lahaadeen isbedelay because anigu 5 hour baan dadka Afrika ka horeeya dad America joogtaana 12 saacadood baa idin ka horeeya marka waxay noqonaysay inaan 12 wax duuba 12 edit gareeyo aan idin soo sii daayo kowda labada habeenimo haddana qofkii intuu is diyaarinayo waxa soo dhan waxay noqon jirtay aroor waan quraacan jiray dambe seexan jiray laakiin alxamdulillah hadda jalwadkaygu wuxuu noqday iska jawalku sidii la rabay uu noqday waxaan sameeyaa aroortii gym baan aadaa exercise galabtii oo kale waan shaqeeyaa oo hawlahayga iyo shaqadayda iyo YouTube-kayga ayaan duubaa galabtiina wixii aan duubo dhammaan soo galiyaa si aan habeenkii jirkayga ama aan iska shaqeeyo oo skincare-kayga sameeyo ama hawlahayga iyo danahayga iyo khaaska aan qabsado haddana aan seexdo ma fahanteen diet-kaygana maanta hore idin soo galiyay inkastoo aan maalin kasta aan idin soo galin sababtoo wax weeyaan qof kasta markuu weyd la sameeyo uu garan karaa wuxuu cunayo wuxuu cabayo muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan inaad iska ilaaliso wixii faatis oo kale faatis oo dhan inaad iska ilaaliso ma aha inaad micnaa cunada aad iska jarto oo dhan inaad cunada oo dhan iska jarto ma ahan muhiimadda waxa weeyaan wixii faatis oo dhan aad iska jarto kulli balantaydu waxa weeyaan 62 inaan isgaarsiiyo 62 hadda already waxay saaran 10 kg you know alxamdulillah marka hore waxay saarnaa 13 you know anyway mara muuqaalka inaan sii dheereeyo ay hope inaan ku wada raaxaysateen maalin walba wax baan sameeyaa maanta intii aan sameynayay shaqadaydu waxay ahayd intii aan maanta sameeyay waa ku maasantiin daawashada muuqaalka ku xiga intaynu si wada jira ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa bash iyo barwaaqo see you next video qurux badan bye bye peace and love